waxaa sii kordhaya ololaha musharaxiinta u hanqaltaagaya kursiga madaxweynaha Soomaaliya iyadoo suuqa kala iibsiga xildhibaanada cusub uu cirka isku shareeray saacadihii ugu dambeeyay qiimaha xildhibaanada ayaa maanta galinkii hore marayay lacag dhan halkii $100,000 balse hadda waxaa la soo warinayaa in qiimaha uu isbedelay halkii codna uu marayo $150,000 sicir bararka ku yimi kala iibsiga xildhibaanada cusub oo gaadhay halkii ugu sareysay abid ayaa waxaa lala xidhiidhinayaa musharax Sheekh Shariif oo bilaabay olole xoogan isagoo xildhibaanada ku baayacaya qiimo doorashada xilligan ka dhacaysa Soomaaliya ayaa ah midii ugu dhaqaalaha badneed marka la barbar dhigo doorashadii dhacday 2012 taasoo codadka xildhibaanada lagu kala iibsanayay $20,000 ilaa $50,000 inta u dhaxaysa balse waxaa hadda la sheegayaa in suuqa xildhibaanada uu isbedel xoogan ku iman doono lacagtana ay gaari doonto ilaa $300,000